ديله والله ديله وسخه ديله وسخه وعلوا هلا ديله aad baan ii salaamayaa saaxiibada halkan waa hadal inta 14 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban aynu ku eegi doono wiil dhalinyaro ah oo ku nool gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa iminka lagu soo warmayaa inay dileen qaar kamid ah dadka siyaasad ahaan ka soo jeeda ama shacabka Soomaaliyeed ku nool qaarkood weeyaan ee magaalada caasimadda Muqdisho kadib markii uu magaalada caasimadda Muqdisho maanta oo ay banaabax uga soo horjeedeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kadib markii uu sheegay inuu aad u jecel yahay farmaajo laakiin dad dhalinyaro ah iyo waliba hooyooyin Soomaaliyeed ayaa aad uga xanaaqay arrimahaasi waxaana markaasi ay ka naxeen maadaama dad dhalinyaro ah iyo waliba qoys markaa inta badan ka soo horjeeday dhalinyaradooda inta badan joogay halka la yiraahdo gudaha wadanka Eritrea kadibna ay la dagaalameen Ethiopia oo haddana waalidiintooda marka dhalinyarada ay ka maqnaayeen ayaa haddana agtooda wuxuu ku yiri farmaajo waan jeclahay arintaas ayaana saameynta ku yeelatay wiilkan dhalinyarada waana la dilay oo dabcan waxaan iminka muuqaalka ugu jeedaan ba saaxiibada asagoo markaasi la dirjil ama la dilayo ama jirdil markaasi xoogan lagu sameynayo arimahaasi maxay tahay arimahaas inuu falaqeen doonaa sidoo kale saaxiibada waxyaabihii ugu dambeeyay dhanka social media inuu eegi doonaa saaxiibada waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-ka hadda hadaleenta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kalena like-tan uga caawisaan wana maasintii saaxiibada soo dhawaada waayahay saaxiibada hay'ado muddooyinkii ugu dambeysay baa qaar ka mid ah shacabka ku sugan gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ay ka soo horjeedeen banaabax markaasi la dhigayo ama banaabax markaasi looga soo horjeedo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaasi oo ay ku sheegeen in markaasi dhalinyaro ay markaa ay dhaleen ama waalid ay u yihiin ay kaga maqan yihiin halka la yiraahdo wadanka Eritrea kadibna ay la dagaalameen wadanka Ethiopia waa dagaalkii ugu dambeeyay weeyaan Tigray iyo waliba Ethiopia marka banaabaxaasi kadib wiil markaasi dabcan gudaha Muqdisho joogay wuxuu yiri farmaajo waa jeclahay arintaas ayna ku kaliftay in markaasi dadka shacabka goobta joogay ku goobtaan jirdil xoogan ay ku sameeyaan sababtaasina maxay tahay sababta waxay tahay weeyaan maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu wakiil ka yahay dhalinyaradaasi la geeyay halka la yiraahdo gudaha wadanka Ethiopia ana raahday wadanka Eritrea weeyaan kadibna dhalinyaradaasi iminkan baajaan iyo cirib meel ay dhigeen la waayay ayaa haddana sidoo kale waxaa lagu soo warmayaa ilaa iminkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ma uusan ka hadlin arrimahaasi shacabka Soomaaliyeed qaarkoodna muddooyinkii ugu dambeysay banaabax xoogan ayay markaasi ka dhigayeen weeyaan magaalada caasimadda Muqdisho taasina waxay kaliftay in banaabaxayaashaasi ay yiraahdaan farmaajo har dhaco farmaajo waxaynu doonaynaa in caruurteen ay gacanteena u soo geliyo taasi ayana kaliftay in markaasi banaabaxa la isku yimaado haddaba banaabaxaasi maxaa ka dhacay arin aad iyo aad u foolxun ayaa ka dhacday kadib markii wiil dhalinyaraha uu sheegay in uu jecel yahay oo wuxuu yiri I love you farmaajo haddaba saaxiibada waxaynu rabnaa in markaasi dabcan muuqaalkan aan idin soo gudbino kadibna asagoo dhahayo wiilka I love you kadibna maxaa ka raacay oo dabcan jirdil xoogan ayaa lagu ديله والله ديله وسخه ديله وسخه وعلوا هلا ديله ما الناس مقيمين كسله وجعله صبحيه نجاس صبحيه صبحيه واجع شعر عنده قلت ايه ما واجع شعر ما واجع شعر ما واجع شعر ما تعيش اوتك وانا قلت لهم ما جاي شعروا ما تدخل الميت هذا ورا الله بس بس انت سو عمرك بس عمرك وسعك قال له ابو حق اولاده براو ما استاذ
كوالا غسيلة كوالا غسيلة برا أدوك يا عدي سبب waayahay saaxiibada run ahaantii dabcan muddooyinkii ugu dambeysay baa magaalada caasimadda muqdisho sida aan horey kugu sheegayba banaanbax aad u xoogan ayaa ka dhacay kaasi oo dabcan lagu soo horjeeday hanaanka uu u maamulayo gudaha Soomaaliya madaxweynaha iminka talada haya ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo banaanbaxaasna waxay ahayd banaanbax markaasi lagu soo horjeedo madaxweyne Farmaajo run ahaantii shacabka Soomaaliyeed hooyooyin Soomaaliyeed waa hooyo weeyaan hooyo Soomaaliyeed oo caruurteeda waysan muddo dhowr sana runtii waa arin aad iyo aad u falxun weeyaan kadib markii la yiri xaruurtiina waxa loo qaaday gudaha wadanka qaadar weeyaan kadibna halkaas ay shaqo wanaagsan ka helayaan kadib waxa la geeyay halka la yiraahdo gudaha wadanka Eritrea hadda wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ninka la yiraahdo wasiir Dube ayaana maanta ka jawaabay oo wuxuu yiri dabcan wadan kasto ciidan baa inoo jooga hadda wadan kasto wuxuu yiri ciidan ayaa inoo jooga micnaheedu ma in ciidankaasi la dagaalamayaan cadowga cadow inay leeyihiin laakiin waa in markaasi halka tababar ay ku soo qaataan wuxuuna shacabka Soomaaliyeed uu ku booriyay ama markaas uu sheegay inay xaaladda dejiyaan wuxuu yiri shacabka Soomaaliyeed mid ayaan ugu baaqayaa midaan ugu baaqayna waxay tahay waa inay isdejiyaan waa in xaaladda ay ka dhigaan mid markaasi caadiya wiilasha way soo laaban doonaan dhallinyaradeeni weeyaan ayuu yiri wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ninka la yiraahdo Dube weeyaan kadib markii warbaahinada ku yaal gudaha Muqdisho uu markaa maanta la hadlay laakiin shacabka Soomaaliyeed waliba hooyooyinka ku nool gudaha magaalada caasimadda Muqdisho waliba kuwa gobolada jira ayaa aad markaas ugu xun arintan maadaama waalid kasto uu markaa ka maqan yahay caruur markaas ay dhaleen runtii waa arin aad iyo aad u xun weeyaan sababtoo ay tahay waalid kasto wuxuu jecel yahay caruurtiisa inuu waqti la qaato wuxuu jecel yahay caruurtiisa walba xataa qaarkood waxay leeyihiin waa in xataa loo sheego hadii dhintaan waa in meedkooda xataa u baahannahay marka saaxiibada runtii hooyo Soomaaliyeed oo marka ilmeynaysa oo ooynaysa oo dhahaysa aniga caruurteeda ayaan u baahanahay runtii arintaas wax sahlan maaha arintaas dawladda Soomaaliya waxa habboon in degdeg ay kaga qabato ama in markaasi arintan wax ka qabato maadaama arintan tahay arin marka ay u baahan tahay dawladda Soomaaliya inay xoog saarto marka saaxiibada runtii arintan ayaana saameyn togan ku yeelatay muddooyinkii ugu dambeysay ba shacabka Soomaaliyeed banaanbax ay dhigayeen kulli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa laga door sugayay arintan maadaama markaasi dabcan wali si toos ah uusan ka hadlin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana markaasi lagu soo warmayaa in dhawaanba la filayo in arintan ka hadlo waya saaxiibada intan ayaan ku soo gunaanadaya waxaan ku soo gabagabeynaya muuqaalkan oo dabcan qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Farmaajo oo jirdil xoog markaasi lagu sameeyay waxaan idin ka xusuusanayaa in YouTube-ka hadal heenta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kalena like tan uga caawisaan saaxiibada waxaad leeyahay muuqaalkan muuqaalkiisa xiga